kusoo dhawaada qeybti koowaad qisadii la magac baxday Caashaqi hoyan waayay Hormuud baa usoo dhacay. Axmed waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. waa wiil iska degan, la fahmi karo, bulshadana u furfuran. xillina waxbarashada iskuulka ayuu aadaa, xillina asxaabtiisa ayuu waqti la qaataa. Axmed ehelkiisa Kenya ma degana, balse reer qaraabadiisa ayuu la nool yahay. maalmaha qaar wuxuu booqdaa guri ay degan tahay habaryartii iyo wiilal ay dhashay. habeenada ka mid ah isagoo wiilasha iskala qaraaxaysanaya ayaa sheeko la isku soo qaaday. mid ka mid ah wiilasha habaryartii oo lagu magacaabo Liibaan ayaa wuxuu dhahay, Axmedow nin yahow ayaantan nooma aad imaane magaalada miyaad reer cusub ka samaysatay? Axmed intuu qoslay ayuu ku jawaabay, walaalow ma iga waali rabtaa? ninkan dacaskii ku dhammaadeen yaa wax ku falayo. mar qura ayay wiilashii kalena ku qosleen. cabbaar baa kaftan la isku kululaystay. waxaa mar kale hadalkii qaatay Liibaan, waayahaye nin yahow ninbaas ma leedahay aniga gabdho cinda ka ah oo meelaan kala geeya la ee xabad aan kugu qabtee. Axmed isagoo xishood ka muuqdo, niyaddana iska dhahaya raggan yaysan hadhow dhihin waa nin 20 jir ah oo dumarkana ka baqaya, wuxuu ku jawaabay, saaxiibow xaalkayga ma sahlana, balse ninbaas inuu faa'iido keenayo ma moodee, waan isku dayayaa bal qof kheyr qabta igu leemi. Liibaan oo ah wiil macallin ku ah sida gabdhaha loo shukaamiyo, welibana u boolo xooftay oo isaga dhiga nin taajira, ayaa u sheegay inay jirto gabar ay isfahmeen balse aysan is arkin oo uu doonayo inuu bal ka soo hubiyo. hadday noqoto gabar u qalantana uu Axmed ku wareejin doono. wuxuuna ku dhahay, Axmedow waxaa jirta gabar shabaqa ku soo dhacday, sayskeeda hanaankeeda waxa dhan aniga igu daa, anaa kaa soo hubinayo. hadhowle markaan ku dhaho gal qoftaas ha igu boodin. isagoo raba in xaaladda Axmed ay meel u dhacdo. sidii ayaana la isku afgartay. allow niman wax ogeen ha cadaabin ayay Soomaalidu dhahdaa. galabkii ku xigay, Liibaan wuxuu u qalab qaatay inuu bal soo eego gabadha uu muddada badan ninbaaska kala sheekaysanayay. balse maxaa dhacay? la soco qaybaha kale. qisadan waa mid dhab ah, waxaana qalinka u qaatay walaalkiin Axmed Cabdikariim waaye arag. kala socda page-kan, siina sheer gareeya.